السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena soo dhawaada walaalayaal. balse marka hore aan ku bilowno salliga xabiibkeena Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil العالمين إنك حميد مجيد. soo dhawaada walaalayaal, muuqaalkana like inoo saara. waxaan idin wadaa maanta qisooyin cajiib ah oo aad ka faa'iidi doontaan, idina noqon doono cibro. dadka mu'miniinta ah ayay mar walba cibrada iyo waanada iyo wax sheega anfacaan. dikriga alle iyo xuska allana ma ahan wax sahlan. qof habeenkii iyo maalintii xusaaya alle subxaanahu wa ta'ala ee ku xusaaya asmaadiisa ee alle subxaanahu wa ta'ala baryaaya, iyo qof aan alle subxaanahu wa ta'ala xusaynin miyaa siman? jawaabtu waa maya. haddaba waxaan idin wadaa maanta qisas cajiib ah kuwaasoo laga arkay istighfaarta. aynu u gudagalno qisadeena koowaad. qisadan koowaad waxa ay ku dhacday gabadhan waxay xanuunsaneed muddo aad iyo aad u fara badan. xanuun waxaa qaban jiray boga ka qaban jiray aan inaba caadi ahayn oo aad iyo aad u daran. dhakhtar walbo iyo meel walba markii la geeyay waxaa la dhihi jiray oo kaliya waa gaas. daawada gaaska waa ay qaadanaysaa, wax isbedel ahna ma jiro. gabadhan boga ayaa looga dhaganay. haddii ay isdhaxdo dhaqdhaqaaq samee, haddii ay isdhaxdo wax qabso, waa uu uga sii dari jiray. ugu dambeyn waxa ay gaartay in ay noqoto qof guriga iska joogo oo sariirta iska jiifo. xanuunkii ayaa ku batay oo daashaday. dhakhtar walbo iyo meel walba oo la geeyay waxa uu leeyahay kaliya gaas ayaa ku hay. daawada gaaskana say u qaadanaysay waxba uma tarayso. gabadhan waxay reerkeeda gaareen qoys. dhakhtar walba geeya, meel kasta geeya, xanuunkii unbaa ku dhegan. xanuun baabi'i markii la siiyo xanuunka waxaa moodaa wax yar inuu ka foqayo, dan waa uu soo noqonayaa. haddii ay dhaqdhaqaaq yar samaysana kaba daran, in ay jiifto unbaa la rabaa. xitaa jiifkiya xanuunka kuma daynayo. gabadhan reerkeedii intii ay awoodi kareen waa ay u dadaaleen. dhakhtar walbo iyo meel walbo waa ay geeyeen. laakiin maalin maalmaha ka mid ah gabadhan iyadoo sariirteeda iska jiifto oo xanuun hayo ayay moobeelkeeda la soo baxday, iyadoo raadinayso ruqi sharciya ay isku akhriso ama ay isku tufto amaba ay dhageysato. ayaa waxa ay aragtay ciwaan ah xanuun walba oo ku haya daawadiisa waa kan. muuqaalkii ayay ku dhufatay. waxa ay aragtay faa'iidada istighfaarta iyo qof ku fiicnaaday istighfaarta xanuun muddo badan hayay kadib. gabadhan waxa ay bilowday in ay laasinto istighfaarta. saacadaas laga bilaabo istighfaar ayay bilowday. maalintii 15,000 oo mar oo istighfaar ay akhrin jirtay. subxaanallah. muddo 3 maalin ah markii ay waday, maalintii afaraad caloosha ayaa laga qabtay. waxa ay noqotay qof u baahday musqul oo kale. musqushii ayay gashay, mise waxaa ka soo dhacay wax madow oo dhagax aad moodo. wax madow oo sidii dhagax oo kale u adag ayaa ka soo baxay. waxaas markii uu ka soo baxay oo uu soo dhaafay waa ay aragtay. waa ay la yaabtay waxa uu yahay. niyadeeda waxa ay iska gashatay in Allah subxaanahu wa ta'ala xanuunkii hayay uu kaga reesan doonto maadaama waxaas ay ka soo baxeen. gabadhii musqushii ayay ka soo baxday. markii uu waxaas dhagaxa la moodo ka soo baxay kadib, waxaad moodaa xanuunkii hayay yacni hal tin oo ku taalay oo xanuunka u keenaysay oo kale, tintii oo la gooyay. yacni qofkaas xanuun miyuu dareemayaa? waa maya. gabadhaas xanuunkii hayay in laga siibay oo kale ayay la noqotay markii uu waxaas caloosheeda ka soo baxay. alla subxaanahu wa ta'ala waa uu caafiyey. gabadhii waa ay shaqaysatay, nolosheeda ayay wadatay. maalintii kadibna xanuunka kuma soo noqonin. alxamdulillaah, ilaahay fadligiisa. thumma istighfaarta ayay ku dhacday. haddaba istighfaarta ha dhayalsanin, ha fududaysanin. alla subxaanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa kariimka ku sheegay in istighfaarta wax kasta lagu helo. in istighfaarta kurbada ay fiido.
in istikfaarta xanuunka lagu qaado, in istikfaarta risqiga lagu waasiciyo, in istikfaarta awlaada lagu helo. qisada labaad ee laga arkay istikfaarta. qisadan waxa ay ku dhacday wiilkan waxa uu ahaa wiil dambi intuu sameeyay xabsi lagu xukumay. xabsi ayaa la geliyay waxaana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. xabsiga markii uu ku jiray 5 bil waxaa soo dhawaaday xilliga ciida. wuxuu jeclaystay ciidan iyo farxadan inuu la qaato familkiisa. wiil ay saaxiibo ahaayeen oo xabsiga isku saaxiibeen oo xabsiga kula jiray ayaa yiri, saaxiibow, ka waran haddii aan Alle subxaanahu wa tacaala aan xusno inta aan meeshan ku jirno, oo maalayacni intay nagu dhaafi lahayd waqtiga aan xuska Alle subxaanahu wa tacaala ka faa'iideysano. laga yaabay dunuubteena oo badata awgood in aan halkan ku soo gaarnay ee maan Alle subxaanahu wa tacaala u laabano. wiilkan waa ay la fiicnaatay. waxa uu yiri, waxaan bilaabeynaa istikfaarta ama astaghfirullah wa atuubu ilayh. waa uu la qaatay yarka saaxiibkiis ahaa. istikfaartii ayuu bilaabay. maalintii inta uu tukanay mooyee waxa uu go'aansaday asiga iyo saaxiibkiis in ay akhriyaan istikfaarta astaghfirullah wa atuubu ilayh. yani ma bahadlaayabo, waa uu tukanaa danihiisa u qabsana inta kale astaghfirullah wa atuubu ilayh, astaghfirullah wa atuubu ilayh. yoomkiisoo idil intaas ayuu ku qaadan jiray. hal isbuuc markii uu waday ayaa waxaa dhacday in dadkii soo xirtay ay dhaheen, wiilkan hal iska daayo, waan cafinay. subxaanallah, ciidii uu tamaninayay ama uu jeclaa in uu reerkiisa la ciidanay waa uu la ciiday. xabsigii 3 bil ahaa 5 bil markuu ku jiray ayaa laga soo daayay. riyadiisii ahayd in uu reerkiisa farxadda la qaato oo ciidan uu la ciidanay, Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u rumeeyay. markii uu Alle xusay oo Alle xasuustay oo Alle u toobad keenay oo uu Alle dambi dhaaf weydiistay, ayuu Alle subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo manihiisa iyo karamkiisa iyo sharafkiisa ugu fududeeyay in uu meesha ka soo baxo. sidaas ayuu xabsigii kaga soo baxay. ciidiina waxa uu la ciidaystay oo uu farxadda la qaatay familkiisa. haddaba istikfaarta ama in aad dhahdo astaghfirullah, in aad Alle subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiisato ma aha wax sahlan. Allana subxaanahu wa tacaala quraankiisa waxa uu ku yiri, bismillaahir rahmaanir rahiim, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Alle subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiista waa dambi dhaafe yursil samaa calaykum midraara. war Alle dambi dhaaf weydiista oo samadaha idinkaga soo deji roob. waxyaalaha uu roobka ku maqnaada waxaa ka mid ah dunuubta. hadday dadka dunuubtay galeen kasoo noqdaan ee Alle subxaanahu wa tacaala istikfaar weydiistaan, waxay ka mid tahay waxyaalaha roobka lagu helo. wayumdidukum biamwaalin wa baniina. haddii istikfaar la sameeyana waxaa lagu helaa xoolo iyo awlaad. marka walaalaha quruxda badan, istikfaarta ma aha wax sahlan. waa ballanqaadka Ilaahay. hadda maanta qof hadduu kuu ballanqaado, qof haddii uu shay kuu ballanqaado, waxaa laga yaabaa in aad aaminto oo aad dhahdo, hebel ayaa ii ballanqaaday. ka waran ballanqaadka Alle subxaanahu wa tacaala. Alle subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisa ka waran. ma aha wax sahlan. marka walaalaha quruxda badan aynu ka faa'iideysano insha Allah, aynu tijaabino, walaalaha kalena u sheergaray si uga faa'iideystaan. laga yaabo qof xanuunsan in inta muuqaalka uu arko Alle subxaanahu wa tacaala istikfaartiisa la imaado Alle ku caafiyo. laga yaabo qof daymaysan in muuqaalkan intuu arko aad sheergarayso oo ka faa'iideysto oo uu ku duceeyo. marka walaalaha quruxda badan insha Allah, khayrka ayaa mudan in la faafiyo. khayrka faafiya muuqaalkana like ina saartiina ka iloobina. wassalaamu calaykum.